qurbaha haddaan dhibaatooyinka ardada ku haysa aan toos u galo kan ugu horeeya waa waxa ingiriiska lagu yiraahdo homesickness ama hilow ay u qaadaan ardada wadankii iyo ehelkii iyo familkii ay ka soo tageen oo مثلا qofku markuu yimaado wadanku ku cusub yahay xitaa waxa dib ku noqonaysa inuu la qabsado cimiladii waxa dib ku noqonaysa inuu la qabsado cuntadii waxa dib ku noqonaysa inuu la qabsado environmentigii cusbaa marka qaar ku jirada oo xitaa inta ku niyad jaba wadanka dib qurbaha dib uga noqday wadankii ku noqday wax la mida dhibaatooyinka marka soo gaara ardada waxyaalaha kuwada ugu horeeya waxa kamida hilowga ay u hiloobayaan wadankii iyo dadkii familkii iyo qaraabada intaba maxaa yeelay marka waalidka la joogto taladooda talaysa naxariistooda helaysa waxyaalo fara badan oo adiga aadan xitaa qaban jirin ayay kula qabanayaan marka faa'iido fara badan qofka ku haysta dhibaatada haddaan taa uga gudbo waxaa jirta dhibaato kale oo ayadana ah dhinaca cilada ardaygii oo imaanaya waxbarasho qurba oo imaanaya isagoon diyaarsanayn oo مثلا waxaad arkaysaa arday lagu leeyahay weligii ma aanu isheeg soo marinba tacliin formal education ma uusan soo helin dugsi hoose dugsi dhexe ma uusan soo gelin sida burburkii ka bacda Cabdul Shideey waxba iska jira ardayga maaragtay waxa laga yaabaa inuu waxyaalo iska soo samaysto hadhowna uu yimaado dad dhisnaa oo soo maray dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare xitaa wadamada qaarkood waxa jira wax la yiraahdo bir engineering iyo ayaa jira oo qofkii waxbarashadii dugsi hoose dugsi dhexe kaliya ma xitaa college iyo soo maray inta uusan soo gelin waxbarashadii caadiga ahay marka ardaygan wuxuu imaanayaa asigoo hadee iska wata just laakiin rabela inuu wax barto oo waqti ka faa'iideysto diyaar la'aanta waxay keenaysaa marka dhib fara badan oo qofkii inuu waxbarashada la qabsan waayo in uu ku rafaado in niyad fara badan ay keento waxa qasooyin dhacay waxa kamida waxaan leeyahay arday kamida nin aad weyn ah waxa laga qaaday marka imtixaan waxa leeyahay bal inta aan meel ku geynin bal aan imtixaan ka qaadno meesha aad u qalanto aan ku geyno imtixaan laga qaaday imtixaankiya waxa sidoo dhowr ilaa 10 jir waxa u qalantaa fasalka afraad haddii la yiraahdo marka fasalka waa la fariisanaya ardaygii hadda wuxuu noqonayaa ratiil la dhex fariisiyo waxaro haddii la yiraahdo aqoontiisa meesha dhigto ku level haddii laakiin la yiraahdo taa macquul ma ahna dadka uu niyajabaya ilmaha yariiska ninka weyn lama dhex fariisi kara la yiraahdana ila yiraahdaadiisa la qiimeeyo waxa loo geenayaa dad ku ahaan ah مثلا ama ku muuqaala laakiin tacliin ahaan dad dhisana oo tacliintii haday isu soo tixaysay oo markii fasal walbaba wax la kordhinayay shal hadii uu ku bilaabay maxaa yiraahdaa maado